sidee ayaan luqad ku baran karaa waa su'aal muhiim ah waxaan uga jawaabi doonaa muuqaalkan insha Allah ta'ala luqadaha la barto waxa uu fadli badan luqada carabiga maadaama Allah subhanahu wa ta'ala uu u xushay kalaamkiisa luqad marka aad baranaysid luqaday doonto ha ahaato Arabi English Chinese Japanese Faransiis waxay doonto ha ahaato waxa muhiim ah inaad xoog saartid المهارات الأربعة أما مهارات كأفرتها أو كلا الاستماع أو دقيسية التحدث أو كهذا الكئة القراءة أو أقرنتها إيو الكتابة أو قراءة الكئة مهارات كاس أفرتها وحكو سورة قلينا يعني هدي آد حوق سارتid إن لقد داسي آد برتid قواعد runtii inta badan dadku waxay xoog saaraan qawaacida iyo naxwada inay ku dadaalaan waa muhiim laakiin waxa ka sii muhiimsan ma aragtay qofka inuu maharaadkaas ku dadaalo hadda tusaale ahaan tusaale hadii aan u soo qaadano cunuga yarka ah markii la dhalo qawaacid lama baro naxwo lama baro sidii ma aragtay oo u dhageysanayo hadalka hooyadiis iyo dadka ku hareeraysan hadalka ay dhahayaan markii dambe waxa la arkayaa asagoo ku hadlaya luqadaas sidoo ku awooday inuu ku hadlo luqadii maadaama uu dhageysiga badiyay hadda tusaale ahaan hadii aad luqada aad rabtid inaad baratid aad dhageysigeeda aad badisid waxa ku fududaanaya markii dambe waxaad gaaraysaa heer luqadaasi aad ku hadashid marka waa muhiim maharaadkan afarta ah luqada aan rabno inaan barano inaan badino dhageysigeeda si aan ugu hadalno markii dambe waxa awoodaysaa luqadaasi in aad ku hadashid waan filayaa inaad ka bogateen. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.